إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo ummadda muslimiinta meel kasto ay joogaan waxaa loogu bishaareynayaa in masaajidkii ugu weynaa ee gobolka Minnesota ilaahda uu ku yaalo waliba bartamaha magaalada Minneapolis oo masjidkaas oo magaciisa la yiraahdo Nurul Iman Mosque wuxuuna ku yaalaa wadada Park iyo 22nd iyo 22nd waa isbitaalada u dhow yahay Molks 24 u dhow yahay waa Franklin u dhow yahay waa masjid ku yaala bartamaha magaalada Minneapolis wuxuuna ku dhagan yahay jaamacadda St Mary University. haddaba ummadda muslimiinta ah meel kasto ay joogaan waxaa loogu bishaareynayaa in furitaankii masaajidka hadda anagu aan taagannahay dhammaan ummadda muslimiinta ah meel walba ay joogaan. haddaba maalinta la furi doono grand openka la sameyn doono bishan aanu ku jirno waa 19keeda waa bil barakeysan ee Ramadaan waa maalin sabti ah. ummadda muslimiinta waxaa la ogeysiinayaa inay halkan afur u soo doontaan si ay uga soo qayb galaan furitaanka masaajidka ku yaala bartamaha ee magaalada Minneapolis oo magaciisa la yiraahdo Masjid Nurul Iman Mosque. sida aad idin muuqda dad badan ayaa runtii isweydiiya buildingkani markay wadada Park ay maraan waxay dhahaan buildingkani muxuu ku saabsanaa. maanta waxaanu dhex taagannahay buildingkii quruxda badnaa aad ka arki jirteen dhihi jirteen qaar baa laga yaabaa inuu yiraahdo wuxuu ku fiicnaa buildingkani waa masaajid maanta gacanta muslimiinta ayuu soo galay waana la gatay masjidka waana anaga iska leh alxamdulillah wax lagu farxo. haddaba maalintaasi sabtida ah waa bishan aanu ku jirno 19keeda ha moogaanin inaad afurkaaga halkaad u soo aadid si aad masaajidkii aad u aragtid. waxaana la bilaabayaa furitaanka waa galabnimo waa 4 salaada casar intaan la gaarin iyo ilaa afurkii oo dhan ayaa mataqaana muxaadarooyin iyo waxyaalo fada badan ayaa la idin soo bandhigi doonaa aad ka arki doontaan. haddaba haddii eeba yiraahdo barkinna ciil looma qabo wadada iyo waliba masaajidka wuxuu leeyahay barkin aad u weyn oo waliba sida hadda aad ugu jeedaan kaamirada dadka islaamka oo saa'imiinta oo dhan oo amaana maqlayaan amana daawanaya waxa leenahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ramadaan kariim. halkan aan joognaa waa masaajid cusub oo ku soo biiray masaajida sidhigan Minneapolis furitaankii weynaa oo aan ugu baaqayno dadka islaamka oo ku nool gobolkan Minnesota ama gobolada kale oo America ama North America ama caalamka islaamka waxaan ogeysiinaynaa furitaankii weynaa iyo xafladii inay noqon doonaan maalinta sabtiga oo bisha July ay ku beegantahay 19 marka waxaan leenahay muslimiinta dhan ugu baaqaynaa ka soo qaybgal wanaagsan. assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan akhyaarta sharafta leh ee hawadana laga socota waxaan leenahay ramadaan kariim allah naga wada aqbalo adinkii annakaba. waxaan in kala soo hadlaynaa masjidka weyn ee dhawaan laga dhisay gobolka Minnesota oo muddo sanad ka badan shaqadiisu socotay. sida culimadii iga horeysay ay sheegeen masaajidka hawshiisa waa soo gabagabowday furitaankii baa la joogaa waqtigaas la sheegay oo ku beegan bishan aan ku jirno 19keeda bisha mataqaana July 19keeda ka soo qaybgalkan wanaagsan baan leeyahay. waxaan rajaynaynaa culimo badan oo kala duwan inay gobolada Mareykanka iyo meelo kale nooga imaan doonaan. haddii dhowr qofood aan ka sheego culimada noo imaanaysa meeshan awal waxaan la joogaa rag badan oo waaweyn oo culimo ay kamid yihiin Shariif Maxamuud Shariif Cali iyo Sheekh Abdulqaadir Xaashi Cali Sheekh Abdulqaadir Baajuuri. waxaan rajaynaynaa inay nagala soo qayb galaan culimo ay kamid yihiin Sheekh Saalax Macallim Sheekh Yuusuf Maxamed Cabdi Sheekh Axmed Nuur Sheekh Yuusuf Sheekh Abdiwali Sheekh Maxamed Guuleed Sheekh Abdulqaadir Macalin Aadam Shariif Cabdullaahi Shariif Maxamed Siraad iyo dhammaan culimo kale Sheekhana Sheekh Axmed Suufi iyo dhammaan culimo kale aad u tiro badan oo aan la soo koobi karin. waxaan dadka muslimiinta mar kale ugu bishaareynaa inay ka soo qayb galaan oo ku martigelinayna intii akhbaarteenu ay gaarto xafladaas muhiimka ah ee masaajid guri Ilaahay lagu iftitaaxinayo ee culimo badan ka soo qayb galayaan inay ka faa'iideystaan.
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ilaahayna u weydiiyo inuu amaalmar weyn ku amaalmariyo dadkii hawshaan u qumay oo u istaagay oo maalkoodii iyo naftoodii iyo juhdigooda galiyay masaajidkaas dhaqaalihii galay kuwii ku bixi ahaadeen kuwii cod ku taageeray kuwa jecel oo ku faraxsan kuwa u duceeyay khaasatan dad badan oo axbaab ah oo nagala soo xiriiray Australia iyo Canada iyo Yurubta qaybo kamid ah iyo waliba Kenya ayagoo jecel oo farxad muujinaya waxaan leenahay waxa bixiseena maalinta aakhire shahaada Allah in kaga dhigo sadaqadii jaariyada ahayd ee nabigana suuban noo sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo la aqbalan Allah in kaga dhigo waxaan ku martigelinaa cid kasta oo ka soo qayb gali karta oo muslimiinta ah gudaha haday joogan iyo haday dibadda joogan haday yihiin dad ka qayb qaatay iyo haday yihiin kuwa kala maqan haday yihiin kuwa hadda ugu horeyso dhammaan ku martigelinayna maalinkaasna laga bilaabo galabkii markay tahay 4 galabnimo ilaa 4 laga gaaro muxaadaraad kala duwan oo khayr ayaa socod doona jumcada ka horeysa maalinka 18 ay taana culimada martida ayaa masaajidka jumcada saliid gareey doonta oo hogaaminaysa oo natujinaysa oo muxaadaro noo jeedi doonta dhammaan marka naftaydiina waxaan dardaarmay Ilaahay xabsigiisa Ramadaanka Allah naga wada aqbalo qof kastaana Ramadaanku soomahayo iyo sadaqadu bixinayo ti aakhira uu Ilaahay agtiisa ku liibaan lahaa oo sumca iyo ru'yo iyo istustus iyo faan laga reebay inuu noqoto ku dadaalo dhamaantiin waa mahadsantihiin waxaan kala rabaa inaan mahad celiyo dadka meeriyaha gudbinaya oo akhbaarta iyo masaajidka hawshiisa gudbinaya khaasatan Somali National TV bahada oo inta nagala joogta iyo inta kale taw ayagana aad baan u salaamayaa dhamaantiin waa mahadsantihiin saciigina mashkuur Allah ka dhigan leeyahay wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh